wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Saad Ali Shiro weheliye wasiir dowlaha wasaaraddaasi ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulankii muddada 2 maalmood uga socday Hargeysa wakiilada Somaliland qaar ka mid ah dalalka dibadda oo la barayay siyaasadda amuraha dibadda iyo sidii dunida ay xiriir wanaagsan ula sameyn lahaayeen muddada tababarku socday ayaa la soo weydaarsaday afkaar la xiriiday tala soo jeedin fikir wadaaga iyo doodo la xiriira sidii qadiyadda Somaliland meel loo gaarsiin lahaa taasoo ay ka qayb qaadanayaan qurbajoog aqoonyahanka ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada marwaadna aadan Ismaaciil wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna munaasabadaasi muddada 2 cisho ah way aragnimada la wadaagaysa safiirada ayaa talooyin u soo jeedisay safiirada Somaliland qaran baynu nahay qaranku madaxweynuhu leeyahay madax sare ayaa jirta oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda wasiiradu midba wax buu qaabilsan yahay qaar difaaca loo diraa qaar wax kale loo diraa departments kale wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirka qaabilsan ee ay hoos yimaadaan missionsku loo igmaday xiriirkooda ka warhayntooda hogaamintooda loo igmaday waxaan jeclaan lahaa inay danjirayaashu xusuustaan طبعا مدحوينها كما دلبودي كرتد لكن هذا your direct minister your line minister ووزير كريم الدبد وحن مركز لكم علنية line minister كحكومة سفارة أما حفيز كrepresentation كو ووزارة أريمها الدبد أمر كوحو كقاضنا وزارة أريمها الدبد شلي صاحب هدي هايان هدي colleagues هايان هدي عول هايان هدي أصحاب هايان مر هدي الله مجعاب قف إنه نقدر مثلها Somaliland أو سفارة نوتشوغا line minister كيسوا وزير كأريمة الدبد وحنفيل يا بروتوكول لدينا إن يتاسو أهدي أدوغا موقته ويفعلان لهاي geesta kale agaasimaha waxda siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda Cabdi Qani Xasan Goolle ayaa isaguna istul taagay ahmiyadda uu shirkani u leeyahay safiirada dabcan shirkan wuxuu ahaa shirkii labaad oo loo qabto wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland dalka dibadda sanadkan dabcan sanadkii hore bisheedii baa la qabtay ahmiyadda weyn u leeyahay waxa weeyaan in wakiiladu lagu tababaro waxa loo yaqaan protocolka habmaamuuska waayo waxay wakiiladu matalayaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay u matalayaan dalka dibadda waa in habmaamuuska iyo sharafta qaranku ay ka muuqato wakiilka taas lagu tababarayay tababarkan ama barnaamijkan oo tababar quramo ahayna wada tashi baa ku jiray wada tashiga waxa la gorfeynayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa ka soo qayb galay 3 xisbi qaran waxa ka soo qayb galay aqoon-yahano jaamacadaha dalka waxa ka soo qayb galay wakiilada ilaa iyo 12 wakiil oo Jamhuuriyadda Somaliland dalka dibadda ku leedahay marka siyaasadina waa la gorfeynayay tababarkana dabcan waxa la isweydaarsanaya aqoon gabagabadii waxa si rasmi ah shirka u soo xiray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Ali Shiro wuxuu ka warramay ahmiyadda uu shirkani u leeyahay safiiradu safiir waliba xafiis baa madaxweynuhu uu igmaday oo magacaabay inuu madax ka noqdo madaxnimada waxa hoos yaala mas'uuliyad xil baa hoos yaala qofkii inuu guto xilkii sida loo guto waxa loo baahan yahay qorshe wala qorshe sidii ninkii loo sheegay hadarto presentationkii qorshuhu aniga wax weey waa saldhigga wax soo saarka wax qabadka goob walo laga shaqeeyaba marka xafiisku inuu qorshe lahaado is absolutely critical and important dabcan wuxuu markuu xafiisku wax qorsheysanayo wuxuu ku saleynayaa resources wuxuu qabanayaa resources ku saleynayaa laakiin وين أكو حساب تان ما دام إنه كان هذا إسكان resource كان diaspora يعدي كلمة اللي جه هنا وين أكو حساب تان أصور كتير لفتي هذا وحب بهنتي هنا ويانا كنت very important ما هو work إنه حق إنه كيم عدو إذا كان وين سيتشوكتا اللي دين في الكراية وحوضك كسعودة ده ودك السفركات هذا لا بس عن بابا وحكي كسعودة ومشكلة السورية مكان daily base وين daily brief رئيسية daily brief ونسمع كعديد نسيان لهاي بريتو إن شاء الله حنشارك نسرقنا أنت سامك سوق وين ولا